deegaan dhowr meesha waxay maanta u joogtaa inay qabato ama ay gudato waajib ka mid ah waajibaadka saaran kaasoo ah inay qayb ka qabato ama qayb ka qaadato danta guud maxaa la yiraahdaa baahiyaha danta guud waxa ay ka qaban karto saas daraaddeed maanta go'aansanay isbitaalkan inaan ka sameeyno shaqo nadaafad oo bilaash ah iyadoo la caawinayo maxaa la yiraahdaa meelaha si u kala daran yihiin muddo badan oo soo laalaaban doona insha Allah bidnillaahil kariim intii awoodeena annagoo la kaashanayna maamulka meesha inaan wax badan ka bedelno qaabkii nadaafadda meesha insha Allah bidnillaahil kariim tababarna u sameeyna shaqaalaha diyaalaha awood la yiraahdo waana mahadsantihiin dhammaan shaqaalaha iyo dadka ka soo qayb galay maanta oo ay tahay maalin Isniin ah taariikhduna ay tahay bishii 12-keeda 2018 waxaan ku dhex sugannahay isbitaalka weyn ee la yiraahdo hooyada dhalaanka isbitaalka Banaadir waxaan nahay shirkad la yiraahdo Deegaan Dhowr Clinic Service oo ka shaqeysa nadaafadda iyo bilic soo celinta gobolka Banaadir shirkadda ahdaafadka u dhisan tahay waxa ugu weyn in magaalada Muqdisho ay helaan dadka degan bilic iyo nadaafad ay ku kalsoonaan karaan shirkadda waxyaalaha ay ku dadaasho waxa kamid ah in xarumaha isbitaalada waaweyn hoteelada waaweyn shirkadaha jaamacadaha in laga dhigo deegaankooda deegaan aad u qurux badan una suuban in ay bulsho isticmaali karto oo lagu khidmeyn karo maadaama ay shirkadda intaas ka shaqeyso in muddaan ay soo shaqeynaysay oo laga soo bilaawdo 2015 ilaa iyo hadda ay ka shaqeynayso shirkadda isbitaallo badan iyo hoteelo badan oo magaalada ku yaalana ay gacanta ay ku hayso shirkadda waxay isal garatay markii maamulkeeda iyo howlwadeenadeeda ay fariisteen isbitaalka Banaadir oo hooyada dhalaanka oo ah isbitaal ilmaha yaryar iyo hooyooyinka si majaanan ama lacag la'aan ah wax loogu qabto duruufaad tiro badanna soo maray duruufaad badanna ay ka muuqdaan mas'uuliyadda isbitaalkana ay bulshada Soomaaliyeed u taalo ayaa waxa shirkadda ay garatay in ay qaybta ay ku leedahay oo ah nadaafadda aan ka shaqeyn inaan qaybtaas aan ka qaadano sidaas daraaddeed isbitaalka hadda koraan soo booqanay qaybihiisa kala duwan ayaan fiirinay waxaa nagala muuqatay dayactiro tiro badan oo xagga nadaafadda ku saabsan sidaas daraaddeed waxaan go'aansanay inaan isbitaalkaasi gacanta aan ka geysan karnaa aan ka geysano waxa ilaahay uu noo garto oo nawaafijiyay maanta inaan isbitaalka imaano oo soo booqano insha Allah waxaan wax ka qaban doonaa oo bilicdiisa iyo quruxdiisa aan soo celin doonaa oo sida loogu talagalaan ka dhigi doonaa insha Allah laba qaybood oo ugu muhiimsan qaybta dhalmada haweenka iyo qaybta qalliinka lagu sameeyo labadaas qaybood ayaan rabnaa inaan wax weyn aan ka qabno ka bedelno insha Allah taala insha Allah waxaan rajeyn doonaa isbitaalka maadaama uu qaybo badan uu ka kooban yahay qaybaha kaleetana inaana meelo kaleeta insha Allah taala aan ku darno waxaan kaleeto rabnaa ilaahay duu idmo inaan sameeyno shaqaalaha nadaafadda isbitaalkan ka shaqeeyo inaan siino tababar nadaafadeed ay ugu adeegi karaan isbitaalkan laano nadaafaddu waa hawl caam ah oo muhiim ah oo bulshada u muhiim ah islaamkana uu meel weyn uga jiro saadaraad qofka ka shaqeynaya nadaafadda waa inuu yaqaan xirfad ahaan nadaafadan see loo qabtaa waa inuu yaqaan diinta islaamka xagee ka joogtaa nadaafadda hadduu ka shaqeeyo muxuu ka helayaa ilaahay agtiisa iyo aakhiro muxuu ka helayaa inuu yaqaano oo qofka uu ka shaqeeyo awood ruux daaqili oo ah inuu nadaafadda ay muhiim u tahay bulshada diin ahaan ay muhiim u tahay insha Allah taala maanta oo taariikhdu tahay 10 bisha December 2018 waxa isbitaal Banaadir anoo ku hadlaaya magaca maamulka guud ee isbitaal Banaadir nagu soo booqday Deegaan Dhowr Clinic Service qolo la yiraahdo oo aan isleenahay waxay ka shaqeeyaan nadaafadda magaaladana qolada inta badan nadaafadda oo xil saaran kamid ah Deegaan Dhowr way ku mahadsan yihiin haddayba soo garteen in isbitaal Banaadir maalin 2 iyo 3 siiyaan sida ay noogu ballan qaadeen shaqaalaha isbitaalka oo aadka u tirada badan oo cleanerka noogu shaqeeyo ay siin doonaan tababaro xagga wacyigelinta ah xagga nadaafadda ah iyo xag walba uu leeyahay barnaamijkan clinic dayga ah waana ka mahad celinaynaa Deegaan Dhowrna waxaan leeyahay anoo ku hadlayo magaca maamulka mar labaad soo dhawaada